Assalaamu calaykum. Warbixintan oo dhowr qayb ka kooban waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dagaalyahanada Kataib al-Qassam oo dabin u dhigay askar badan oo ka tirsan kuwa gumaysiga Israa'iil halkaasna ku halaagay. Sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahinta qaabkii ay Xamaas u xasuuqday hal meel 21 ka mid ah askarta gumaysiga ciidamada Israa'iil. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xukuumadda uu hogaamiyo Netanyahu oo qiratay jabka soo gaaray ciidamadooda ee nala socda ilaa dhamaadka. Mahadsanidin. haddii aan ku bilowno TV-ga Al Jazeera ayaa soo bandhigay muuqaal ay duubtay mid ka mid ah kaamirooyinka ku xiran koofiyadaha askarta ciidamada Israa'iil kaasoo ka qayb qaadanayay dagaalka Gaza. muuqaalkan ayaa muujinaya koox ka mid ah askarta gumaysiga oo guri dhexdiisa ka dagaalamaya iyo dagaalyahanada Xamaas oo bannaanka guriga taagan oo rasaas iyo gantaalaha garbaha laga rido la soo beegsanaya. muuqaalka ayaa muujinaya in mid ka mid ah askarta gumaysiga ay si toos ah u haleelayso rasaasta Xamaas xilli uu isku dayayay in uu rasaas ka rido albaabka guriga wuxuuna ku dhacayaa dhulka isagoo cabaad iyo qaylo isku daray. muuqaalka ayaa sidoo kale muujinaya ciidamada oo sii galaya mid ka mid ah qolalka guriga iyagoo dhulka jiifa oo ka baqaya rasaasta Xamaas. dhinaca kale askariga dhaawacmay ayaa kasoo muuqanaya isagoo buste meesha yaala ku qabanaya meesha ay xabadda kaga dhacday si uu joojiyo dhiigga badan ee ka baxayay. dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa talaadadii baaritaan ku sameeyay dhacdadan oo ay ugu yeereen musiibo taasoo ay ku dhinteen 21 askari. ciidamadan ay Xamaas xasuuqday ayaa xilligii la birtilmaameedsanayay waxay miinooyin ku xirayeen guryo ay lahaayeen shacabka Gaza si ay u burburiyaan. saraakiisha militariga gumaysiga oo saxaafadda la hadlay ayaa dhankooda qirtay jabkan soo gaaray waxayna sheegeen in 21 askari looga dilay dagaalkii ka dhacay koonfurta marinka Gaza halka warbaahinta Israa'iil ay sheegtay in la dilay xilli ay ciidamadu isku diyaarinayeen in ay qarxiyaan dhismayaal dhowr ah. dhismayaashii ay doonayeen in ay dumiyaan ayaana iyaga lagu soo kordumiyey. Daniel Hagari oo ah afayeenka ciidamada gumaysiga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Xamaas oo adeegsanaya gantaalada garbaha laga rido ee RPG ay laba dhisme ku soo dumiyeen 21 askari ee laga dilay. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Tel Aviv ayuu Hagari ku andacooday in koox hubeysan ay kaga yaabsadeen ciidanka Israa'iil rasaasta RPG-ga. waxa uu intaa ku daray oo uu yiri howlgalku wuxuu u muuqdaa inuu sababay qaraxa laba dhisme oo ay ciidamadu doonayeen in ay dumiyaan iyagii lagu soo dumiyey sidaasna ay ku dhinteen. dhankeeda Xamaas ayaa shaaca ka qaaday talaadadii faahfaahinta ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada Israa'iil ee ku sugnaa xerada Magaasi ee bartamaha marinka Gaza. waxayna sheegtay Xamaas in weerarkaas ay ku dileen 21 askari oo gumaysiga ka tirsan. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay in Israa'iil ay soo gaartay dharbaaxa ba'an Isniintii iyadoo laga dilay 24 askari. haddaba weerarkan Israa'iil looga dilay 24 askari ayaa ka tarjumaya xaqiiqada dhabta ah iyo jahwareerka haysta ciidamada gumaysiga ee Gaza ku soo duulay. waxayna mar kale Israa'iiliyiinta dib ugu celisay xasuusta naxdinta ay ka qaadeen weerarkii 7 Oktoobar. khasaaraha nafeed ee soo gaaray ciidamada Israa'iil ayaa imaanaya xilli ciidamada gumaysiga ay bilaabeen wejiga saddexaad ee dagaalka kaas oo diiradda lagu saarayo hareereynta iyo go'doominta Khan Yunis iyo go'doominta sidoo kale inta kale ee maamulada marinka Gaza iyadoo la filayo in khasaaraha uu sii kordho. dhinaca kale falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ee Israa'iil Amir Bar Shalom ayaa aaminsan in inkastoo natiijooyinka adag iyo khasaarihii militari ee soo gaaray ciidamada gumaysiga aysan Israa'iil ku tala jirin in ay ka quusato hareereynta magaalada Khan Yunis isagoo tilmaamay in dhacdadii lagu dilay 24 askari ee ka dhacday xerada qaxootiga ee Al-Mawasi ay muujinayso sida ay u adag tahay hawsha socota. wuxuu kaloo xusay in kadib dhacdadii lagu qarxiyey tanalka Burej ee lagu dilay 6 ka mid ah ciidamada Israa'iil in ciidanka gumaysiga ay wax ka bedeleen dhowr hab oo ay ku wajahayeen fagaarayaasha dagaalka sidoo kalena ay bilaabeen in ay godadka iyo meelaha ay doonayaan in ay howlgalka fuliyaan ay si taxadar leh u wajahaan balse dhacdadan dambe ay muujinayso inaysan weli u diyaarsanayn dagaalka wadooyinka iyo xaafadaha isku raranka ah.